shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta xaflad ballaaran oo lagu daafurayay barnaamijka adeegga e-dahab oo adeeg cusub oo casri ah oo shirkaddu ay ku soo kordhisay adeegyada hufan ee ay bixiso ku qabatay hotel Xaaji Askari magaalada Gabiley waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka maayarka degmada iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley mas'uuliyiin sare oo ka tirsan shaqaalaha kala duwan ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel ee laanta Gabiley salaadiin cuqaal dhalinyaro tiro badan iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley ujeedka xafladda tan ayaa daarnayd soo bandhigista iyo hirgelinta adeegga laga maarmaanka oo isticmaalka bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley iyo dalka intiisa kale shirkadda Dahabshiil iyadoo kaashanaysa Somtel waxay ka fikirtay raaligelinta dadka ka adeegta shirkadda iyadoo ka duuleysa in shacabku ay dareemaan baahiyaha tiknoolajiyada caalamka ay isku dayday in shacabka ugu bishaareyso adeeggan e-dahab oo adeeg saldhig u ah qaabka lacagta la isku gudbiyo sidoo kale adeeggan e-dahab waxa uu ku sahlayaa in qof kamid ah family-gaaga oo qurbaha jooga aad si fudud oo bila turxaan ah lacag u gaarsiin karto isaguna uu lacag ugu soo diri karo adeeggan e-dahab ayaa sidoo kale ka caawinaya in lacagta aad ku kaydsato ku tukaanaysato adigoo adeegsanaya akoonka aad ku leedahay shirkadda Dahabshiil waxaana ugu horeyn daafray ujeedka xafladan maamulaha shirkadda Dahabshiil laanta gobolka Gabiley Farxaan Cismaan Xaaji Cabdi oo tilmaamay faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay adeeggani shirkad ahaan ay ka go'an tahay dhiirigelinta shacabka ka adeegta Somtel iyo Dahabshiil inta ka bacdi waxaan farxad u ah in shirkadda Dahabshiil وكل التقارير طريقة حوالات عام واحد بدون لبعضهم زي أكثر من بيننا والأهم تجارب الصومال الدكتور عن كأهين كل عام هاي مكان أدي وفن وكان موجود يعني وحى فرحان الله إن صار فيها جسر عقلي برتمي سي وصلنا فيه وقول يا أفريق وقع هاي لو أشوف بدي أدي كمان يتعامل فيه ده ما دام تطور أما تكنولوجيا العالم وأما هاي كبيرة هاي المرة وحوارات الصعود waxaan markaa shirkadu garatay oo ay isdustay in ay muhiim tahay in mar walba xafiiska in wax laga doonto oo qofku intuu wareeyo xafiiska ay noqonayso waqti hawla waxa kale oo ay leedahay in dadku ay wada degan meelaha tuulooyinka ama magaalooyinka meelaha miyiga ama meelaha kale ee qofku uu hawl banaanka ku jiro adeeggiisa uu heli karo sidaa daraadeed shirkadda Dahabshiil waxa ay bilowday sanadkii 2014 إن كمان مجالين كتوقع سومالنا لقد بيعملوا لو يعرفوا كل مجال الأسعار إن لقى هو وقت استقبل عسي هي مجال خاصة أديك اللي يعملوا في ذهب بس لما كان معطى أي معامل ويهين إن كمان وقت كل قاف هو اللي يجي لنا هذا يا معامل خاصة من جل أساس أديك يا أي معامل شو كل إنسان يسوى كل سوى بيسي وحنا أديك كذي كمان أمان حروف التفشيل إن كمان وقت قاف وكيانا تولوينكا يا مجالوينكا جمهورية سوماليلاند. أذكر إنت ممكن تسوي سيستم عصري أو سكيور أو نمط شم كاسيكو لولا التكنولوجيا ده موبايل ماركتينج سيستم. كاسي أو أي أمورتين شركتها عامة التكنولوجيا تسويها هو على لسان الكاميرا. سيستم كا إذا هو شغال إنترنت حتى ولا لديك يسوي أنت بلاك شغال إنترنت حفيزة حتى ولا لديك يستقى إنه شغال كرام إنترنت ضعان كاسيكو هذا يكتب أو الشركة بسوق يسوي سلوك عليه هذا بقى أديك إيدها بحولي هاي أديك إيدها وحكك هوبين هاي سبع قيمة سبع قيمة أو كذا وحنا جل اليوزر إن معاملهم يا سبسكرايب وحوي معاملهم رسمي يا عارف sidoo kale madaxa barnaamijka adeegga e-dahab laanta gobolka Gabiley Maxamed Nuux ayaa ku nuucnuucsaday ahmiyadda ku jirta adeeggan e-dahab isagoo sidoo kale faahfaahiyay qaabka ugu fudud ee loo isticmaali karo adeeggani waxa uu tigay in maalinta ka dambaysa adduunka lagu noolahay ay soo gelayaan xaalado caafiya oo faa'iidada leh waxaan maanta halkan kaga hadli doonaa furitaanka adeegga caafiga ee e-dahab shirkadda Dahabshiil iyadoo markasta ku hawlan taageerinta shacabka muwaadiniinta waxay idin soo kordhisay adeegga e-dahab oo ka mid noqon doona adeegyada shirkadda Dahabshiil printers and notaries oo qabto macaamiisheeda si lamid ah adeegyada xawaalada nidaamka sarifka waxaad heli kartaa adeegga Dahabshiil gobollada iyo dhammaan degmooyinka gobollada Somaliland waxa maanta loo farxad ah iyadoo sayla ilaa asxaabada ugu qabanayo xafladan
inaan dowladda maanta halkan ay guud ahaan xafladan aan ku qabanno waxaan ka bixi doonaa insha Allah adeegyada loo isticmaalo iyo faa'iidadiisa ay noo soo kordhisay shirkadda dahabshiil oo aan uga baranay ammaan hufnaan iyo dadkeena ka warhayso runtii adeegayda waa adeeg cusub oo shirkadda dahabshiil kuu furtay kaasoo kuu fududaynaya ugu horreyn mobilkaaga waxaad ku isticmaalaysaa mobilka somtal simkaarka somtal waad ku isticmaalaysaa inagoo u daadegana sidii aad u isticmaalaysay waxaad marka hore gelinaysaa mobilkaaga somtal xidig saddex waliya dableys baad gelinaysaa saan adeegii ugu dhaacdo markaad u haysiiso wuxuu ku odhanaya ku soo dhawow ii dahab dabadeed waxaad akhrinaysaa menyuga kuu soo baxa liiskaad adeega menyuga ugu horeeya subscriberka waxa weeye qofka isticmaalaha isagu ee aan ahayn merchant-ka wuxuu ka kooban yahay 6 buu ka kooban yahay xarafka ugu horeeya number 1 markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa xisaabteeda oo aan uga sii dhaadhacso ee haragaaga tixraac kooban dadka nambarka sirta ah dadka luuqada iyo liiska magacyada wuxuu kuu fududaynayaa inaad mar keliya seef garaysato magacyo badan oo markaa aanad u baahan inaad mar kale kusoo celiso markaa wuxuu kuu fududaynaya inaad mar keliya ka dhex raadiso liiska magacyada number 2 lacagta gudaha iyo dibadda ayuu ka kooban yahay number 2 lacagta gudaha waxa weeye gudaha Soomaaliland dhexdeeda dibadda waad u diri kartaa Mustafa Saleebaan oo kamid ah shaqaalaha gaarka ah ee dahab ayaa isna tibaaxay qorshayaasha tabagalka ah ee adeegan ii dahab uu leeyahay kulli barnaamijka ii dahab waxa uu macnihiisa ka caawinayaa dad fara badan baa ku leh dahabshiil account runtii waxa weeye lacagta ku kaysada waxa weeye lacagta kala baxa dad fara badan baa lacag loogu soo diraa marka aan mid baahida in qofkii lacagta kibaysa ku kaysanayay aan waqti fara badan xilligii waxaan ku talagalay qofku inuu markasta accountkiisa isagu leeyahay uu ka qaado mobilkiisa uu lacag la bixi karo uu lacag soo dhigi karo uu dhaqdhaqaaqa adeegiisa dhaqdhaqaaqa mobilkiisa waa maxay uu ogaan karo waa maxay taashiisa caadiga oo aan la kala waashinta kadib talada weyn baahida loo baahnaaday waxaan kala ku darayaa hal point labaad oo muhiim u yahay dahabku waxaa loogu talagalay ganacsatada shaqaysanaysa ee shaqaalaha leh ama waxaan ugu talagalay waxa weeyaan jaamacad oo kale ama iskuullada programkii dahab ay leedahay oo u gaara oo waa maxay program system loogu talagalay oo waa maxay qofka marka la geliyo systemka ii dahabka waxa shaqaalaha hal time loo wada diri karo barsaabka gobolka Gabiley iyo maayarka degmada Gabiley ayaa soo dhaweeyay adeegan ii dahab iyagoo shaqaalaha kala duwan ee shirkadda dahabshiil uga mahad celiyay adeegyada hufan ay ku soo kordhinayaan bulshada ku dhaqan gobolka iyo dalka intiisa kale runtii ii dahab waxay soo wadaagtay adeeg wanaagsan bay keentay wax badan way sahashay inkastoo waxa uu leeyahay iskaantiisoo mararka ay dhib u keenaysay oo meel fogtoodo oo insaanka yahay waraya halka kusoo laakiin waxaa u baahataasi wax badan oo faa'iidaa bay keentay oo runtii fududayn iyo shaqada qabanhay inaan wax ka baxo xadiidkaan oo lacag dirto waxaa ka fiican inaan doonkaan isticmaasho akrito iyadoo ay degdeg tahay taasna aad ugu macquulinaya taariikh ahaana dahabshiil dadkan wax badan bay la soo martay xilligii adeegana runtii wax badan bay la soo marto markii dulcadii la tegay goobihii dadka ka baxay weli laga tegay meesha keliya lagu badbaaday wax la soo marinayay waxaa dahabshiil maruu maxamed saciid shaqada ku soo qaaday maruu sistamka bedelo sistam si kale usoo diraba dadka iyagoo qabansiga jooga ayaa loo keeniyey taana halkaasaan kaga baxayaa hadalkiitiisa badan waa la yidhi si fiicanna waa loo sharaxay dahabshiil group iyo siduu kusoo bilaabay oo marka laga hadlayo dee qof maaragtay bilaabay sida taariikhda la sheegayo isagu maaragtay dadka lacagaha u soo qaadi jiray markii hore tadawur gaadhay la aaminiyo ilaa maantana halkay u dhinacay maraya waa wax loo baahan yahay wey oo kaga horeyna wadamo badan oo dariskeenna xagga isgaadhsiinta iyo howlaha noocan oo kale ah waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo sababteen inta dhalinyaro ah ee jeebkoodu leeyahay ee bilacamala ee maaragtay maalinka maanta ay adoon guurisay ama hawlo kala u fududaysay baa maaragtay xitaa ka baxo marka waa inaan halkeeda celin labo halkeeda doolar waxaa lagu hadlayaa boqolooda kadib shirkadaha kale waxaa looga fadhiyaa inay sidaasoo kale u jabiyaan oo iyaguna ay fududeeyaan isticmaalka adeega hadday tahay internetka
iyo adeegka telefoonada adeeg waxa dowladda inay aad u horeeyaan sidoo kale cuqaal qurbajoog iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa shirkadda Dahabshiil uga maqraati kacay hawlaha hufan ee u hayso shacabka dalka sidoo kalena soo dhaweeyay adeegan isla markaana ku booriyay inuu yahay adeeg ku fududeynaya ganacsiga iyo adeegyada dhaqan dhaqaale ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley waxa laga sheegay waxa laga wado teknolojigan casriga ah ee qiimaha waa ilaahay loo mahadiyo marka hore ilaahay baa mahadlay subxaanahu wa tacaala ilaahay teknolojiyadan ina furay ee maskaxda inoo furay allama liisaan ma allam yaclam horta kaasaa mahadle horta Dahabshiil horaynu u wada lahayn waxaan u malaynayaa inuu qof walba u furnaa dahab oo maanta inagu soo korodhay waxaan u malaynayaa faa'iido badan baynu ka helnay aniga mid baa i qancisay anoo gurigayga dhexdiisa jooga markaan waxa biil u soo baabuur soo raaciyay abaan u soo lugeynaya guriga dhexdiisa ku bixiyo ayaan isleeyahay taasaa ugu wanaagsan dahab in la inooga furo caasimadda gobolka maanta oo adeeg ku soo biiraya adeegyadii hore ay dadku isticmaali jireen oo runtii aad iyo aad u muhiim Dahabshiil Group sidoo hore loo sheegay xawaalada ugu ballaaran ee Soomaaliland ka jirta dadka intooda badan ay ku xiran yihiin inay maantana lacagtii elektarooniga oo qofku gurigiisa iyo goobta uu joogo aqoonkiisa waxna ku dirsan karo waxna kala bixin karo inay loo soo kordhiso si kastaba aatee adeegan iidahab ayaa mid raali gelinaya dadka ku adeegta adeegan iidahab oo faa'iidooyin badan xambaarsan haddaba daawada haddiiba aanad lahayn adeegan fadlan iska diiwaangeli laamaha Dahabshiil iyo Somtel si aad uga mid noqotid dadka ka faa'iideysanaya munaafacaadka ballaaran ee uu adeegani qaaliga ah xambaarsan yahay ay ku soo kordhisay shirkadda Dahabshiil oo markasta iyo meel kasta aad uga barateen adeegyada raali geliya oo dadka ka dheehda ay ku istareexeen xafladan sida weyn loo soo abaabulay ka dhacday magaalada Gabiley ayaa ahay mid lagu daafurayay barnaamijka adeega iidahab ee bulshada balanteenu waa iidahab waa Jaafar Cawle Hereri shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley